ku soo dhowaada barnaamijkeenna gungaar oo aan ku dul istaagi doonno macallinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka banaadir kuwaasoo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen qaarna la hayo xogtooda oo lagu raad joogo maxamed xaaji oo magacyadiisa afgarashada ay ka mid yihiin daadir xaaji ilka xase cadnaan xudayfe iyo cadaawe waxa uu ahaa howlwadeenkii ugu weynaa al-shabaab ee gobolka banaadir waxa uu ku magacawnaa madaxa dilalka qorshaysan ee gobolka banaadir horta asalkii xudayfa aan ku group fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la badbedelayna magacadan aska wada group walba lagu soo bedel magac cusub waay cadaaba la baxay rakacasan la baxay maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhalinyaradii hore aan ku soo qaadanay barnaamijyadeena gungaar waa macallin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda mana ahan wiil yar oo aan waxbaran oo la marin habaabiyey haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka maxamed xaaji ilka xase ee la xiriirta dhagridda bal aan marka hore eegno isagu waa kuma lafahantiisa ayaa noo sharaxaya maxamed xaaji heerarkiisa waxbarasho sideeda kala dugsigii hore markaas ka soo baxay markaas oo idin kaga sheegaysan markaas oo culumta diinta aan ku soo baxay oo taxadka ilaahayeen xaq diin ahaan markii la kutubada soo akhristay oo dhowr ay u badan yihiin rasaalixiinka iyo bilowul manaamka iyo tajriis waxaan kutubada tajwiidka iyo kutubada kala jihaadiga wax badan ku soo akhriyay سواء مش اللي يقدر تروح حافظ عوالو ميلك مرة من حافظ القرآن حق دين تساسو مرة ديك سوا صدق حاسو دمي سنة كذا كم يسديد السوق سديد إسلا أكاديمي كيف حاسو بدي بقعد مرة كبروا ديك سوا سرة حاول دمي 11 2011 لما كم يسديد يو كوي تبانك إلى بتوقع حيسا أنا أخوتي الجامعة عن صوغ لي لو طبعا كلا يلحي طبعا كان لينا شهادة بي عن خاطئ كدي بوحان قال لي مع إنجليش كله برتو مقال كويس بفرونتير لنا مش حاجة خاطئ شهادة دبلوم إنجليش أسستنت أنا إيه خاطئ مركي عن كسر أسستنت أنا سلاقي وحن عشان ناخذ مع هذا معنى إنجليش أكاديميك إنجليش عندنا مركا دولة كلا هذا جامعة مقدشة بلاوي ماستر environmental study halkan waa maxadka frontier oo lagu barto luqadda ingiriiska waxaana uu ka ahaa macallin ingiriis maxamed xaaji ilka xase isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus of preparation one of the international exams of the world. It's a center which provides and prepares IELTS preparation. I think in general East Africa we have only few countries that operates and prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the very first college started preparing the method of macallinka dilaaga noqday maxamed xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisanayd al-shabaab ee muqdisho ka geysata falal argagixisanimo waxaana sida ku xashaxda booliska gobolka banaadir madax u ahaa qaybta dilalka qorshaysan ee shabakadan maxamed xaaji iyadoo uu ku-xigeen u ahaa sharmaaka cumar axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka banaadir ayna ku raad joogaan axmed faarax iidle oo magacyadiisa afgarashada ay yihiin shuuriye madoobe nuunow iyo ramadaan cabdiraxiin mursal oo la baxay saalax waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorshaysan qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda ilka xase waxaana ku-xigeen u ahaa dhinacaasi saalim siciid oo ay gacanyaryaal u ahaayeen haashin carab faadimo korneylo maryan oo ah xaaska saalim cabdiraxmaan sheeba iyo cabdinaasir axmed oo ah maqanayaal ay boolisku ku raad joogaan maxamed xaaji ilka xase waxa uu ka mid yahay dhalinyaro dhowr ah oo al-shabaab ah oo aan horay u soo waraysay kuwaas oo fikirka takfiirinta iyo xagjirka lagu soo baray dugsigiisa qur-aanka taasoo ah halka uu kala jaan qaaday al-shabaab horta fikirkan wuxuu ugu dhashay fikir oo anigoo weyn ah
وكيرا معنا مرك جاران تصالحان دكسو هوس دحين مركان ديناي دكسو قرآن كان ده دكسو قرآن كان ديناي وحوه دكس اتحاد إلي حلقاس dugsiga aqwaanka hal jir gobolka dhan waa looga imaan jiray marka la markaas ahaan xiligaasi suufiya ku badneed magaalka iyo gobolka laakiin magaaladaasi waxa loo imaan jiray dugsiga la aqwaanka oo caan waa dad ka dibul mar dugsiga aqwaanka dadadi ameel aan hada u sheegi karo marka dugsiga waxa macallimiin oo ahaa banaman oo xiligaasi oo atxad ka dagaalam jiray oo nin la dhaho macallin Suleymaan nin la dhigi jiray oo howlgaladii calal ka dhici jiray Itoobiya ku baxay maxamed xaaji ilka xasan waxa uu shaqadiisii ugu horeysay al-shabaabnimo ka soo bilaabay magaalo xeebeedka marka oo halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saameyn ku lahayd kooxda al-shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda xiligaas dugsiga waxaa noogu imaan jiray waa xili hore sheekh Fuad waa nin iska yaraab xiligaas xoogaa da'ahana nin weyn u ogyahay iyo aadan xaashi iyo nin la dhaho maxaa la jiray Cabdullaahi Salaad iyo Abu Zubayr meesha ugu waajir kale ma ka jirin xiligaas laakiin ilka xasan waxa uu marka uga shaqayn jiray habjaajuusnimo oo isaga koox kale ay ka dhex shaqayn jireen inay macluumaad ka aruuriyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada Marko dawladdu marka meesha oo soo tashatay markii isoo galeen oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarijiga isku bedelay dawladda imaaday daaqil oo ku soo baxay kan qaarijiga ana taasoo qaarij ayaga howlgala ilaa dadka ayaa yaqaan oo intaan ku soo koray mugta kii isbedelaayo kii jaasuus ah askarti dad cusub hadii keeno yaani dib way naqeen in loo tilmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisan hadana sidii waxa la jiray aan ku bilaabay hawshii ugu horeysay kooxdan wiilka xasan ka mid ahaa ay Marko ka qabtaan waxa ka mid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajo kaasoo ka shaqeynaya Xaajo Bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay maxamed ilka xasan in dilkaasi uu geysay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen Asad aan shakhsiyan aqaanu ahaa yani in fiican oo ahaa dawladda u shaqeynayeen waxba muusan ahayn meesha station road ku joogay footadaas uu iska joogay family ahaan yani waa dad aad loo yaqaan footada iyo sawirada dadkaas xiligaas gobolka dhan waa laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada xataa isaga yaqaan banaankan joogay oo meesha isaga station roadtiisa munishibi meel la ku tala sarta dheereed oo muxaadarooyin wax lagu qaban jiray anoo xagga taagan aan waxaan arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo budbooda la dhahay doono amesh taaganay asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay waraan imanka wada carreen gabigooda wallahi fulay waay shaabti iyo wixii iyo kan budbooda wax muusan hubsan ninka ku bilaabay abaar marka xabad ina anaga soo wada orod meesha ka imaanay ninkii jeefa aragnay inankan biska la xariisan bas ninkii soo wadnay waxa dhacsaan uu dhahay ninka uu dhahay telefoon soo ku hadlay telefoonkiisa waa kaasa anoo meesha taagan uu dhahay nimanka soo galeen wuxuu gudbinay أسد مركز هو نولا أنا وأركي يعني بارلايس هو نولا يعني هان هو صوت تجينا كلا كم مركز هو نولا أسد مركز ده كم سكان يقانا قاركات سكر مصاحبه وعنا فوتد إيوحي مركز ما بقدر سمين بعنا هذا هو سيسان فرق يسوقلين بنا كان كيس تاجي maxamed xaaji ilka xasan waxa ka mid ah waxyaabaha xajiibka leh ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa Jeneraal Ismaaciil oo xaruurtiisa uu saaxiib la ahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulay sida xaruurtiisa oo kale آخركينا وحاو مركا كدلي واهي وجنرال إسماعيل أحمد عثمان مكيالي كدلي سيدي دي اللباتنكي بشي تمنا سنة كي لبادي يكوني اللحي تمانكا دقمدا وابريا مقالة مقدشو نين وحال جري إسماعيل رشان اللحي أها وعن وايس شنامدا عن كامركا كتار شيخ إسماعيل مركيالو دمغا شانيق الهوا جنون لكن سياد بروها markii dawladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal
oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda oo soo hubeeyay dib loo sii janay waxa la jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada Ismaaciil guriga ku dhiganaa buu deganaa baan weligii magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waay adeer iska dhaha marka mugti ilmiisna saaxiibana ninkii aameesh dadka qabtay ku mid ah marka Abdulqaadir Siidi isagii gurigaas qabtay ninkaasna waxa waay dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan ka mid ah isaga dhowr mar oo aan shakhsiyadii iga badbaaday oo aan gurigiisa bam ku tuuray ciyaalkiisa saaxiib waa ahayn hadda marka dambe intaan ku helay ninkii waxaas dhan way soo dhamaadeen waa la soo weynaaday jaamacada la dhameeyay dar hadda oo Muqdisho kan 2 sano ka hor iyo 1 sano ka hor inay tahay jecel Liberian ku helay Ismaaciil asoo Interpol shaqeynaa booliska muddo 5 sano 6 sano ka soo wareegtay ninkii dadkii meesha waxa soo baabaa inta la sleemaa moqt ninkii intuu imaaday isagoo sarkaal la sii dalacsiyay oo yani Interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahayn anaga marka si hadii loo dhaano xoogaa waxa nagu jira adeernimo iyo wixii qaraabo mineen laakiin adeer iska dheena laakiin haddana hooshii ana bariis adeer iyo waxa inaan ana ugu dambeyn hada ninkii saaxiibkayga Hashimi afar sameeyeenkii iyo ani shuri dilka Generaal Ismaaciil kuma uusan ahayn Maxamed Xaaji kaligiis waxa ka qayb galay Haashim oo kamid ahaa shabakada Ilka Case waa kan Haashim oo isagana ka sheekeynaya qaybtii uu ku lahaa dilkaasi wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa bari isgooska shaqaalaha wuxuu fadhiyay meesha laga soo doorahay hadan ciidana markaadna oo seminaarka maadal sheegay Talyaani ma sarkaalo waxa marka xaafadu soo galay xaafadiyaan kala soo dawgalnay markii taasan sidoo kale Maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay Xaaji Baano oo kamid ah waxgaradka magaalada Marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isagii dhagar qabayaasha la socday banayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka Eebe يعني نكان إسقى بانو حجبانو وأنا أرت لويد أنا لويد خان مركي إسقى لقى صلاة تدبدون نمديس يدرغ نمديس عاد كواها ده مركم مساجد وكصابة مساجد يرى الرحمة الله وكل حيارس الرحمة ده وين معها وجر كل حيار كوكل حجر درغبض كل حيار شرفة ير ودرغبض لا يكون تكتان كيو كصابة حي بنان كان كوين مرك لكن والصو كونفرم قريه نكسر على عليه markii dambe waxay kooxda al-shabaab u soo bedeleen Maxamed Xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho oo uu sheegay in waqtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan oo ay ku xigeenno hayeen Cabdi Majiid iyo Cabdi Muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sanadkii 2012 Maxamed Xaaji markii ugu horeysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen Galadila iyo Mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay Muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd Felis Maco oo xukunsana ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho أنا شخصيا قرأت عبد نمكن أن كسر جاري وحير أنا كسر جاري خلاف كي جوكتي وحيد عادي وليه كي كدب وحيدا ولا بدل على هاي قرأت على الله يعني قلت لي قال عن الله لا شخصت يرجين هذا أساسته مجال واقعي وحكي خبط سيدا كلوا أساسي أو وده قرأت نمن جبت سكول نمن جب هذا أو سكول جرجر تاني حيل لكن هذا كوي قان هذا أخونا نجرا أو جور هذا هستجان والله بننا أكتف أو كوكينا يري استشخصت صدق دين labadii qof ee waqtigaasi la shaqeynayay Maxamed Xaaji hadda galad waxa uu ka baxay al-shabaab halka Mooryaankana la baadigoobayo ay sheegeen booliska gobolka Banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa Maxamed Xaaji waxa uu ka bilaabay Muqdisho hawlihiisii dilalka dhagarta waxa uu Muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay Muqdisho waxa kamid ahaa Generaal Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uu jaranka ku dilay masjid ku yaala Waabari isagoo ka soo baxay salaadii cishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sabab la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhawaa aaga
جنرال كان ماشي soo fadhiisanahay maqribka cishaa wuxuu ku tukanaa marka maqribka ma la dili karo oo degmadu u dhow yahay degmadana ciyaalkan dhacad ka joogo aagaas isha madow waata marka waa cisho marka niyo dhowr mar isku daynay waxa la isku heshiiyay hadii ninka bubuk la maqlo degmadu u dhowdahay isgoosada day xiraan inta laga baxa ragina la lugayaan hal luuq waxa jir marka mar walba luuqa xeelada la lahaado oo lagu baxsada jiro oo la calada wadooyin kala xirxiro oo bajaajta la barbaaray dhalinyarada iyaga waxooda wataan meesha la soo maray dilka jenaraal quruurux waxa uu ka mid ahaa dhagarii ugu xuslaa uu sameeyey maxamed xaaji ilka case waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday laba koox oo bamgacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada Waabari iyo bar ciidan oo ka dhaweyd meesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu taleefanada ka baaqay tuuray bamgacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii u socday oo ahayd dilka jananka masaajidka cisho ku tugtaa marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shir anaga waxaan dhahay shir hoosh adan keenay taala soo qabsan la adan keenay taala mar muqdisho idin ka dhex joogay waxaan wixii hub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoosh idin ka wada جنرالك مركا هوش أنا وصل شوتي نيوادا مقدس وكل يخان بدأ أنا سلمان وصل شوتي سلمان ترى حوير نيو جنرال كرتا حل ملوجا ذكر لون ملوجا ذكر صدح ملوجا هذا إلى لبوا وطا مركا استافكا لبوا واي حل نسقوا نقول بشغلي سقف صدا نقول بهلوك هذا مركا أنا حكوا فكري دقمدا أودو waxaan nahay markan iyo macquul ma degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah hatta albaabka ay isaga dhufta say barto intay difaac ku galan xabada ay tooraan ee isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeediyay degmada hadii lagu dhufanayo kuwa kale oo bundadana gaaray meesha u yaalo jukka day dhacday soo dhaqaajinayaan ayagana ku dhufana markuu warkeeda isku raacay talada raafiyay dhagaxyadii la keenay oo la soo diyaar garoobay saddex marka loo soo diyaar garoobay ugaaska caawba hal loo keensaday hal qof loo keensaday maxalli jiray jananka hal staff oo wata bas sayidka iskuul tugtay markii cishaha oo laga bixin rabo waa u baaqayna dhalinyarada markaan u baaqno baaq aan ku wada dhufan labada dhalinyaro in jugta ay dhacdo kadibna xabada lagu xijiyo saas ay ahayd si xabada dhan ay u dhumaanba ila jug markii xabada la wada yeerna waqti ciidanka yaa tuuray meeshina ku dhaxqarsantaa la rabay kadib sidii jugtiya dhacday oo ku qaban ugaaska iskool daan soo siiyay الله أن حريص جنرال محمود حاج علي وكمدها سراكيشة عيدمدا أيا كمدها ددكو دلي محمد حاجي وحانا وكدلي دقمدا بوندير حلو جنان كورفا دي غورغيسا waxaa soo gudbiyay wiil mootolaa soo gudbiyay oo dhahay in janana meeshan joogo markaan tagay oo aan shaqada soo fiirsanay dhahayniyo soo fiir dhalinyarada xagga gudeen bonder meesha ugu xarunta badan waa dawladda maxaa la jiray soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxaltoole aan soo fiiriyay meesha way adag tahay aad iyo adkaatay markaan ninkan general ma okay maxaa aninka banaag iska fadhiy markaan general ma aan dhahayniyo ku qaldamaysid هروح موجودة ما جيسان شيء حتى نشاط قال هنا كجنة مع أنا كسركال وادي أكتر كان جن ولا كنت سوف لسنة هل ويلا فريسنا مجرى عنده مش واحد مبرور عنهم بولي جيدا تاسو كل سوني تاسو سكوا خواء بس أوكي واحد مركب قلب عن ربني قلب عن سوري قلبيسي صوح قولي الله دسايا صوح أنا يشوري يوحاماني يوجاس شقة إلى شقة جنة ومك ilmo yareer ma kaysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan ka dhiman karaan ragii waaweynaad in xaniyooda fuulaama markaan meesha imaanay janankii isaga ahaa jananka waaba fadhiyaaba subaxa waa haddii ani iyo ugaasaan xiranay showriina waa u xiran tahay showri nooha xag u taalo noohadan ka qaadana aan ku yiri ma nooha ma la bixi karo سينا دينا يحرتان إسقوس بحبذا دعمه والله اللي بيحكي عنك ويري وجفينا دينا الله فن وطورينا عنده بس قانك وخادنا إنه هذا عن خادنا حدا أدنبه وحركوا يا جذوه قلي بيحد حاجة أجمرني جروه قلي إنك شورية كرنا نقدامنا ما حدا إنك جروه أو جسنا جروه واحد كتير من أخان أو كذا وحصاب بحب جننكي أو جننكي سواته ودركي ملتري وته ما أغاني واحد دقها أوتون بس كله بالجم في عنوته يمتكلوا استاف
وطا يعني غير وطا هاك وطا أصل صباح وراني مكو صباح إننا نص على نك وين كسكيل علي بس كانوا وطا بس إنه هذا الجلان أنا أقول أنفلين فك ده لو صار بهم ما تهاوني بمركانك أسفيرين وأصلها في نلعب يعني هوش السلام كسب بعد سيك دوني نوع نقد من كان مش نوف دين عادي اسكا هذا بس كله سو قاتي اسغا خل استهدي لا دارك ودي ما ودغنا مالين كلابات مالين كلابات اسن سيدي سو بلانك فديه بوك ان سيني ما هذا لابتوب صار لابتوب كان سو دفاي سو عرري كوفي ان كول غلا مروبن ان ولا يقانا كوفي ان كول غلا سو عرري xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed cabdiraxmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa u khidmaynta shacabka ayay ku dileen waddo ka soo baxda gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan ka soo deganay gaari ka wastaanay كاي واسونا كلا بيكو سارين نك كلا إلى أنا بجناين كمان هذا قل نصور بس هذا قل نك كلا إلى لا أنا فرنا صاحبه ومشغول أنا نك هذا وتابت ومشغول زي مكتب بس كايس ما يعيش زادل ولا قاعد كرر كذا نك كلا إنه مركب نك إلى عليه واحد دلائي إنه إلى عليه أصلا كرر سوي وكان وكان هي حاجة قل أنا قل أنا قاعد أنا قل هي نك قاعد دمر مش صاد حكي أبو نوع كذا بأستاجيب سمياب دش هذا عي كان كلا تقول هاي بقى قبتي صدق أنا قارك صدق صدق أنت صدقتي ومنطقي وفريستك عيو اسكت درس من سوى عبين مركا وقاعد عقد لك جد ولا مرة مكت تين الضوء على أسكار الله يحرمك وإحنا ملوهين عن ملاء قوسن كدب وحمقلنا قدرنا كما قدونا نك أو ده يور هبرة ننا تلفون قد له نجي سري أنا قوم بس كمرين دبك ورنك يستجع هنك كلا ولا صارناية سلوا نافع مركن نك كلا ورنك كلا ما أخوزنا الله دي بنك فاهم دونا نك حتى إنه وحاها فلولا أنا أوغاني وأديك لنا نفتر كيس سجى دي بنك أوغان دونا نك جاري لا صارنا إنه الشقة وحكلها يعني حرر عليه محكمة ونفتر كشغينا أوغاني فاكتور لكن لما هو sidoo kale dilka taliyihiisa liga wardhiigle ayuu wax ku ogaa inkastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda wax dishay wuxuuse ku doodayaa in kooxda wax dishay u dejiyeen xeelad ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha mooto ku barbaray mooto barbarad laga dhigay dabada taloomara hubkii uu soo dahay dib u imaaday ay qaateen furtay موت أواس مش حكوا بربرة صالح وحكوا لي عن الموت مش حكوا بربرة عبارة مش جوجا رجعت ما تكوت ولا معك سانس عمران سليم مش جوجا دوالي إيش سان كسوهن ليه sometimes نوع أركيس أخوفك أنا عنا حتى ما نقام maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii aamina oo ahayd baare ka tirsanayd nisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markan ka horeysay la soo xiray maxamed xaaji aamina meel aan ku arki lahaa ana ma dhaafeen ciid dadka qowl number 1 aan ka ah xataa ana ogta taas waqti fahma aamina rag fara badan horta xaniya qabato oo markii meesha joogtay wax badan ay haleysay waxa kamid ah yar la xukumay oo la dhahay maxamed mare طبعا محمد marka milyan qof baar oo soo noqoto in hal uu fiirinayo aamina waxay u tin ku ahayd al-shabaab waxayna dhamaantood u arkayeen qof khatar ku ah maleeshiyaadkooda la xiro isla markaana aan marna gorgortan ka galin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad u arkayeen inay aamina waqti dheer joogto baarista iyagoo arkayeen qof marka la soo xiro ay haddana sanad kadib markii la soo xiro isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi maxamed xaaji ilka xase waxa uu sheegay in kooxda aamina dishay oo isagu geeyay goobta ayna hagaysay qof dumar oo is yaqaaneen mid ka mid ah dilayaasha waxaana dilkaasi fuliyay sida uu sheegay ugaaska oo qofka sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyo cabdullaahi kuusane oo isagana sawirkiisa aad aragtaan oo la baadi goobayo iyadoo hubka wax lagu dilayna ay watay maryan oo ahaa cabdullaahi kuusane hooyadiis isla markaana xaaska uu qaba salmaan oo kamida shabakadan la hayo kiiska aamina wuxuu u dhacay san u sheegay hal shay baan ku dirin
وحقيق اللي صوحي ولا عيالك ود جيمش مالن عبد الله كوعني كرت أنت إن أنا وياس يجروب كيسة عن وضعي أو عن جيمش عن بنانك كيسة داوش صاحبته وجودها أنا كوجر كوسنا أو كوسنا مركزنا وتويدي سوعي نايا أو شيء صارنت وحنا شكي يجرن آمن قفك كلاس كله فدين وجود بهذا كان حتى بنانك وجوم كده هنا أركيد مركز فصل كلا لفدينك وانتي وحنا سي قياس يا قفك فصل كلا فدين وصاك عيسو استاجي وبنانك وصابحي وكوسنا لهذا لكن دم كل هبتي يعني كلام تو بحنا كدبنا وش ساسي ولا حد دمر وها كوسنا على صح هذا الشيء كدبنا صلاوات كدبنا كويس صدق هذا المرة السوق له كوسنا وحوك استاجب البابك لا هذا هو شيء قش يعني لا بقول قش يقول صدق يكون سعيد كاس يمكن أفهم مع تاني كلام تاعنا هتفرق أردن سمي أردن كوسنا وفي سنة halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganaysay Aamina lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegeen in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhex dilay Aamino kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad Aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kulliyadda shareecada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin Maxamed Xaaji Ilka Xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha koontarool ee la badiyay ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wata isagoo sheegay in hawlgallada noocaasa ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirka waa balaart sariirka yani waa baabay hada fashilkii suceebka iyo waxa ku dhacay fashil fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka checkpointooda la badiyay inuu waxa jirto marba di ex control aan gaarin xaniyan lahayn waqti hadda ex control dhaafsatay xataa galmudugna kan wuxuu ku sameeyo ma sahlan hada مثلا استراتيجية أمنية ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro boolis u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay samaysay wax kastoo ay ku xaqiijinayso ammaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisanimo ee gaadiidka lagu horjeeray gaadiidka sida al-shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan ammaanka wasiirka xogeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxaya guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dawladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameyn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha ammaanka waxa ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadeynin laamaha ammaanka haddii ay falka ay geystaanna aysan ka baxsan doonin Maxamed Xaaji Ilka Xase isagoo macallin jaamacadeeda ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inayba dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo waa iska jirtaa mucjiso aan saxaawad marka wax dilis dadka ku arkayaan meesha wax ku dishay maalin kala daymaad caadiba qalbiga ila wax markana waa la kala yaacay oo aqaanani isla maalinka birmaanka meesha imaan shaqo cabeen dadka ka shaqeynaa mar dilka dadka kaliya kuma ekayn Maxamed waxa uu sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhalinyarada falalka argagixisanimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax ciyaar inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhalinyaro uu ku biiriyo al-shabaab kadibna si toos ah u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idin dhigaya ee dhamaystira taasoo uu la jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhamaystirayaan marka dhahan ayaan wadan iyo inoo laba wiil oo cusub la soo wadaa aad u fiican oo ladan ka soo jikmay bal shaqo ma bari kartaan wadaas wiil hada qof darwala u sameeyay shaqo ma bari kartaan ha bal loo keenaa marka dadka marka dad
tababar ahaan dhammaystiran waa laakiin baraatikada ma leh theory ahaan way dhammaystiran waa la baraa marka shaqada ka markaysanaa mas'uuliyadan keena anaga wadan shaqada haye waladan baraa okay ana galaada igu xig oo ku dhigan ko dhammaystiran meesha ka dhaha furo control ku xal xagga istaagaysa aad waa kaas ugu haye bash wala bilaabay ninka maalinka labaad qof kala keena maalinka saddexaad marka active ay noqdaan isku filanti marka Allah markii loo fadaatam marka magacaan kula shaqeynaa ragaas anad Abdulrahman aan kula shaqeynaa ma yaqaanaan laakiin dadka uu tababarka noocaas siiyay waxa kamid ah wiilkan oo lagu magacaabo Shucayb kaas oo hortiisa dilal ku sameeyay marka waxa imaadinay how in la baxaa la rabaa oo maxaa la jiro dooro la aado waxaan dhahay ana markii ilaa hadda ana in lambar leen kala marayna koodhe waxaan dhahay lambar iyo macluumaadaan kala marayna ani ziyaado kale soo gelinaan dhahay xamar hadaan ka baxo anoo dadka ay macnaa horta waxay ku leeyihiin meeshaas aadade tahriiba aadade inta ka baxaade wax saas amal sheeg laakiin anna waan dareensanahay adina waxaan isleeyahay maxaa la jirinayo qof waa warkaaga waa la fahmi doonaa mise system waa ka qaldami doonaa waalid xaqiisa ahaato mise si kala ha noqoto waxaa la dhahay inaan soo baxdo maxaa la jiraa meeshaas imaadado aad cashar qaadatida muhiim ah waxaan dhahay aan xamarka ma bixi karo haweenka ma bixi karo maalinka ma bixi karo xamar dhaxdiisa waxaan dhahay meeshaas hadii taga maxaa la isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaaday wax kale oo meeshaas hadda maan ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxa marka isku fahanay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiyo cashare oo wax fahansiin iyo wax kale ma baahnaan ahniyo ma fahantay ana waa inaan hadda maanta cashare ay akhrisida wax ay ga dhaadhicisay ana hadda uma baahnaan ahay marka hadii ay si kale ay jirto ana safar ma soo aadi karo xumaana aysan naga noqonayna mis wuxuu dhahay marka kulay waa isku noqdeen kulay ragaas waxa waa rag imtixaan waa isku laabteen marka waxa la horta ninka waa laga wareysana barnaamijyada ayaga isla wada hadlayaan saan jeclahay aan ogeyn laakiin se ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen waxaan dhihi jiray in ay shay noqoto gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyay wuxuu dhahay maxaa la dhihi jiray shaqada iyo qaabkeeda iyo nooc loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiiyaa fahansiina ninkaas macnaha maxaa la dhihi jiray oo saaxiibka raacaysa soo maraatig ahaan u fahmay Carabiya koox la socota oo hogaaminaya Maxamed Xaajiilka Xase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysay ka ganacsiga jaadka agaarka siliga Ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhammaantood u dhixi waayeen bastooladihii ay wateen waa kuwan kooxdii bastooladu u dhixi waayeen oo mid noogu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhaxay horta intaan aqaano horta waxayna hayeen ilkaas Carab Axmed iyo aniga Yaxya oo laakiin waa Ismaaciil saxda markii oo islaantan inta la aadan ka hor Axmed ayaa aan isku xiray ilkaas wuxuu dhahay waxa la shaqeynaysaa ninkan kula shaqeynayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo irgada wax soo dooratay iyo waa liisha nolosha sharaxay irgada soo dooratay islaantaas ayaan ina aadina rabnaa waayahay ayaa dhahay Axmed ayaa kula jiro dhahay Axmed iyo aniga waa soo aadni marka hore ilkaas ayaa ibar islaanta jaada yagada irgada soo dooratay ii sheeg Axmed isna wuu bar laakiin aniga markii dibeysa Axmed ayaa israacini waa soo waaneen waa iimaaneen marna way maqnid ila maqnid oo la way baaqati marna marka aadna oo ida inta markii la helo kadib waa la waanay maalinka dibeysiin oo ugu dambeysay waa la helay habeenay ahayd maqrab markii la soo dugtay kadib meeshii marka tagnay oo irtijaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la furiyo la rabi howlgalkii istulooyinkii iyo wixii ka tibeen kadib anaga waa ka soo tagnay waa ka soo cararnay meeshii xoogaa yar buuq yar ka meeshii waa ka soo kala cararnay kadibna anagoo cararayna ayaa ciidamada dawladda dhaxda u galnay horta muddo waan ka soo qaaday waxaan keenay cabirka siliga tala gaarin bacaadi ahayd meesha ku deji iga digeen adiga 10 daqiiqo ma soo wareegan soo qaylaay soo baxay ilkaasa miyo waa baasha ka halawday inuu ka gaaro meesha ka tageen dad ha qaadan koorsa daasho shaqo qaadan haybayaan ay mana diidi kartid waa soo qaaday asoo kontrolkan ku soo dhacay marka kontrolka waa askarta mastaaxo ku soo dhacay
niyo aan horta systemka qabasho ahaan marka aan kuu sheego oo haddii meel kasta laisla aado mise meel kasta la soo maro horta wax aan karsamaynin waxay ahayd anagoo shaqadaas naga soo baaqatay kidibkaas u imaaday ay tahay meeshan cakaara taqaane ay tahay ya meeshan lagu qaban doonana ay kuley ay tahay madiina salkeeda ay tahay oo san wixii oo qabashadeena iyo intaasna aysan u dhaxaynin wax aan 10 daqiiqo dhameen hataa haddii aan fiirino 3 daqiiqo camal soo cararayna oo orod fiican ah marka meesha imaan bajaajka 7 daqiiqana ma aanan saarnayn si aan hadda aan qiyaasay markii been banaanka laga tago mujeeda marka umuum isku dar intaas ay baash hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo Baarliin ayaa isaga xarartay dalka iyadoo ka tagtay carruurtii ay u xamaalanaysay kadib markii ay u baqday nafteeda waxayna iyadoo joogto Turkiga la wadaagtay barnaamijka Gungaar muuqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor saacada ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa rag ay imaadeen hubaysan الحمد لله رب العالمين وكانوا لهاي هالكام بحابي حبدي قبتين بستولة الدبان لي الشيء الدونا مكارف هالكاسي قبتين حبدي مكارف بستولة دي مكارف كدوي لي ويسي والسوريري انتو ايه قبتي حكمك إلهي ويدعي ويسي بعدين كي لبات مركو نكي كوباد لبا حبود وقبتي نكي لبات uu soo wareegay kii kala imaaday oo labaad halka uu iga qabtay kilida ah bistoladaas waxa la yaateetay xabadii way dhici weysay qadarta rabbi uu liga soo wareegay halka laabta uu iga qabtay weysay sayaniga ay waan maxayr shay ragina ilaamaha abniga ay gacanta u galeen markaas ba control ku dhacay aniga markay meesha siiqado korontada iga maqneed ka bacdiya gacanta meeshii laga qabtay markay gacanta meeshii laga qabtay kulay cadkayga dambeeyay targad waxa laga dhignayna ma aqaano marka hadda aan cid targad ka dhigaynin sharciga islaamka kama weynin hooyo Soomaaliyeed oo konton habeen umul ah ayaan ahaa ciyaalkayga meel kuma sheega hadda waxaan biilayay oo markaas aan qof u baxay oo beel iga sugayay hooyaday waayeel ah walaalahay sabool waxa bahaysanin ciyaalkayga yaryariska oo midka uu yar oo markaas umusha ah aan kula jiray konton habeen ayaan umul ahaa intaas baan idin sheegayaa sharciga islaamka kama weyni dhagarta iyo dilka dadka waxa soo diyaariya koox ay u yaqaanaan istikhbaaraad waxaana kooxdaasi xukuma ninkan oo lagu magacaabo Salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka Gungaar balse Salmaan ugu dambeyntii waxa uu qiraal ka hor sameeyay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya halkaas oo uu ka sheegay doorkiisa al-shabaabnimo aniga waa kamid ah laakiin taqiid ahaan كما بدهن قصب أوجيس أن أوركان أوبرة أنا صاحب أنا محمد حاج لي أو قصبي إن أنا كبير شباب أسيقان برنامج كاسلو هذا وحن وابسنا أو كليا العاهس أو كليا كون كي بس الاستعمال الجيران وحد شق أو قبض المجرته هاشم waxa uu ka mid yahay shabakada Maxamed Xaaji la shaqeynayay waxa uu qaabilsanaa hagida iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhacayaan waxaana uu ahaa hagii ugu kalsoonida badnaa Xaaji waliba asaga ayaa ku tashkiiliyay inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab marka ninkaasna saaxiibka waa taqaana horena u taqaanay ururkaas inuu ka tirsanaa anaasan saaxiib aan nahay marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan lahaa inkastoo saaxiibkayga aad tahay inaan arrintaas aan kugu tashkiiliyo oo adiga go'aan ka gaartid isla markii aniga go'aan degdeg ma gaarin waxaan dhahay kuley aniga hadda nin iska shaqaystaan xaasna waa qabaa markaas waxaan ka shaqeeyaa footidii aan ka shaqeeyaa marka waxaan dhahay hoowana waa laga fiican yahay wax hadda aniga arrin qidci askari iyo xaas iyo mana aqaano haddana kuma degdegi karo kuley nin xaas qoon waa kuley dhib ma loo dhahay laakiin qaabka u malaysa ma qaab kale nooc kale loo shaqeeyaa jirto oo adoo hooshaad wato ciddaadan aysan ku ogaanaynin oo iska fiican
ayaa jirto magaalkaana joogo marka qaabkaas aan ku sheega haday ku qanciso kaas kulay ana horta waa kasoo fikiraa si wax u jiray sheeg marka qaabku ii sheegay qaabka amigu ii sheegay magaalka qaabka loo shaqeynayo hoolasho la qabanayo qaab loo qabanayo waxyaalahaas uu ii sheegay marka faadumo oo magaceeda afgarashada yahay korneylad faadumo ama cosaba waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shirqoosho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga arko iyadoona ka mid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka jilcanta iska dhaaf aniga qarax ma ku dhiibanaan hubkan ii qaad ii hay ma ku dhahay degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacayo xilliga xilfadda ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku ilaa saas oo shaqada ay ila wadadaan rabaa waxaas la ii soo sheeg bis aniga wax kale ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al-shabaab doonayaan iyadoona qaarkood shukaansi ahaan ula macaamili jirtay markuu ii soo dhigay sawiradii madaniga saasaan ugu dhigay madaniga marka saas ugu dhigay marka waxaa jiray wiil oo madaniga oo ka gooni ahay sawirkaas oo mootoolo ahay ayaa jiray asna waa u dhigay asiga mootadiisaan u dhigay taargadiisaan u dhigay kaas mayna arkin weli ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii laisku moogyahay haddana waxuu ii soo diray wiilkan oo taliya qaybka ahaa faadumo waxa ay cashirqool u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uuru leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamisay waxay kor ka tusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay asiga wuxuu dhahay hadaad uur leedahay inay buluhu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa ani marka hadalkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay buluhu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa aflagaadan arkaan dhahay marka wuxuu yiri ima maalo ima wiri xaar ma ku imaanayni waa ka xanaaqay maalinkaas xaar ku imaanayni marka habeenkii soo wacay wuxuu dhahay walaalay waa kugu la kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo wixii oo dambiyoon kalena waxaan ku iraahdaa iska kiyafi xaaladan inay meesheeda ka sii socota rajaynayna oo reerka aan ka doono oo waxaan ku raxmatadan ku geystaan aan ka tirtiro marka imo sawiradiisa markaas waa la soo diro taleefankii ku jirin markuu soo wacay amiirka u sheegay xarisaas ay jirto wiilkaas maanta aad rabaan socday xafadiis socodaan hay waa arkayna warjiro qarab ku ballan waa arkayna soo doonaan dhahay waa soo doonay ayagana sidii ay kor uga arkeen xaafadda aad soo sheekaysan waxaan dhawraal warkii hore la wadahay kala day waa ka soo laabtay gurigan u soo laabtay nimankaana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ku ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqadan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala haashim oo ka mid ah qaybta sahanka ee kooxda al-shabaab mar hadda ka hor la xiray maxamed xaaji waxa uu ahaa shakhsigii u dhexeeyey maxamed aabihiis iyo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inuu mar kasta la xiriiri jiray aabba xaaji una sheegi jiray in wax kasta oo dhaqaalaha u baahdo ay ka caawin doonaan si loo soo daayo xaaji aabihiis waxaan dhihi jiray xaalad intay maray meel bis waxaan sheegi jiray inay ardaydii ama dhalinyartii ururka bolmarar dhalinyarta inay wax walba ay garab taagan hadii loo baado qarash hadii loo baado wax walba ana u sheegayna wiilkiisa meeshii lacag hadii loo baado laga helayo dadka caawinayo aan qarinayo intaas aan u sheegi jiray laakiin lacag isku day jiray inuu hadii loo baahdo in soo dhiyo lacag lagu furdaaminayo business laakiin aabbaha dhalay maxamed xaaji oo aan la kulmay waxa uu diiday in ninkan ay wax wada hadal ah galeen isaguna uu iskiis ugu dadaalay sii daynta wiilkiisa wiilka hadda kahor waa iska jirtay
ilmaha dala xiray yani raaf uu galay raaf waa iska jiray marka raaf baa la galaa xermo oo raaf baa la galaa sida caadiga ah raafta waxaa jira wax uu gal la yidhaahdo inuu soo qabto iyo wax oo macnaha dhacdo fal qof sameeyey ama oo dad sameeyay lagu tumay oo wayaal la geeyay la duubaayo iyo waxaa jiro howlgal guud oo la socdo howlgal guud lagu socdo meelahaas lagu xiray marka dambi maana waxna waa lagu baay وأنا الدم اللي هنا حكم الدم اللي هنا يعني أليسي طيب يا أليسي ما جبت عندك حاجة زمان كان سيدتي maxamed xaaji waxa uu qabaa in horjoogayaashooda aysan ogolayn carruurtoodu inay galaan dhibka iyagu ku jiraan taasna ay tahay tuun ay qabaan balse aysan kor u sheegi karin sababo la xiriira xabsi ay qabaan isweydiina ilmahoodii aaw ilmahoodii waa laga dheereeyaa maxaa yeelay ayagaa lagu korraadina maraykana canuga ninka ku korraadin karo nacsu way fikiraan xaqiiqda laakiin saas ma ahan xaqiiqda waxaa nin walba canugiisa waa ku kulaanaya tusaale ahaan cali jabal ciyaarkiisa dhan way u kala maqan yihiin marka laga rabo wiilkiisa lala duqeynayo al-shabaab waxay maxamed xaaji ilka xase ku dareen haweenay u ka dhintay ninkii isku qarxiyay hotel ambassador oo lagu magacaabo qaali cabdirasaaq taasoo hooyadeedna ay ku jirto xabsiga dhexe loona xukumay al-shabaabnimo iyo hubhayn qaybtii koowaad ee barnaamijkeenna gungaar waa naga intaa qaybta labaad oo aan uga hadlayno siday wax u dhagraan kooxda al-shabaab kala soco habeen dambe isla 8 fiidnimo telefishinka qaranka